suuqa bakaaraha ayaa maalintiisii afraad xidhan iyadoo aan ilaa hadda wax isbeddel ahi ku iman xaalkii suuqaasi. dawladda Soomaaliya ayaa saaka ciidamo u dirtay suuqa ugu weyn Soomaaliya ee bakaaraha, kaas oo maalmihii la soo dhaafay u xidhnaa kooxda Daacish oo ku soo rogtay cashuur ay ka cawdeen ganacsatada suuqaasi. ciidankan oo aad u badnaa ayaa saaka soo galay qaybaha kala duwan ee suuqa iyagoo watay hub kala duwan. ganacsatada oo maalmahan go'aan ku gaadhay in aanay furin suuqan ilaa la afgaranayo koox ay ku sheegeen inay taleefanno u soo dirayaan ayaa saaka ciidamadu ku khasbeen inay dukaamada dib u furaan. muuqaallo ay dubeen warbaahinta Muqdisho ayaa lagu arkayay askarta oo xoog ku riixaysa ganacsatada iyo shaqaalaha iyaga oo ku khasbaya inay furaan suuqa. askarta dadka khasbaysay ayaa ku hubaysnaa qoryo kala duwan kuwaasi oo laga arkayay sida ay diyaarka ugu yihiin in ciddii amarkooda diidda ay shaqo ka qabsadaan. ganacsatada oo aan 3 cisho furin suuqan ayay ciidamadu ku sandulleeyeen inay dib u howlgalaan. ciidangeynta suuqan iyo xoog ku furistiisa saaka ayaa la sheegay inay ka dambaysay baaqyo ka imanayay bulshada iyo ganacsatada oo dawladda ugu baaqayay in ay wax ka qabato xaalka amni darro ee ku soo kordhay suuqan lafdhabarta u ah dhaqaalaha Soomaaliya, iyadoo shirkii Khamiistii ee golaha wasiirada lagu soo qaaday xaalka suuqan xidhan. wasiirada ayaa cambaarayay falkaasi, iyadoo wasiirka amniga la faray howlgal degdeg ah oo wax uga qabanayo xaalka ammaanka ee suuqan. lama oga labada garab ee dawladda Soomaaliya hadda u qaybsan tahay ka amray in suuqan ciidan la geeyo, balse dadka arrintan u dhun daloole ayaa sheegaya in aanay isqaadanayn askar suuqa joogta iyo ganacsiga halkaa ka socda, iyadoo sidoo kale la sheegayo in kooxahan ganacsatada la soo xidhiidhaya aanay sidan hawsha ku dhammaynayn maadaama ganacsadu aanay ku koobnayn suuqan oo keliya. suuqa bakaaraha waxaa horey u joogi jiray ciidan dharcad ah oo ka socda dawladda federaalka Soomaaliya, balse ciidanka ayaa suuqa ka baxay markii uu bishii Abriil halkaasi ka dilaacay dagaalkii ay wadeen kooxaha la baxay badbaado qaran, kuwaasi oo diidanaa muddo kororsigii loo sameeyey madaxweyne Farmaajo. xidhnaanshaha suuqan ayaa sida la sheegay keenay culays dhaqaale oo laga dareemayo magaalada Muqdisho, iyadoo walaac laga qabo haddii uu suuqani sii xidhnaado inuu keeni karo dhibaato dhaqaale oo aanay qaadi karin dadka Soomaalida ah ee suuqan ku xidhan. ganacsade ka mid ah kuwa suuqan bakaaraha oo maalintii la xidhay suuqan la hadlay idaacadda BBC-da ayaa sheegay in markii hore ay bixin jireen 2 cashuur isla markaana ay waayahan la dhibaataysnaayeen koonteynarada alaabta lagu soo daabulo oo yaraaday, taa aawadeedna aanay qaadi karin culays kale oo sii fuula. ganacsadahan ayaa sheegay in alaabooyinka qaar loo wareejiyo dhanka dekedda Berbera halkaasi oo ay ka soo degaan, taasina ay keentay qiimo koror ku yimaada maciishadii iyo guud ahaanba alaabtii dibadda laga soo dhoofsan jiray. ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed ayaa maanta booqasho ku tagay dalka Isutaga Imaaraadka Carabta. booqashadan oo lagu sheegay inay ahayd mid shaqo ayuu Abiy ku tagay magaalada Abu Dhabi, taasoo noqonaysa booqashadiisii ugu horreysay ee uu dhul Carbeed ku tago kadib laba kaclayntii dagaalka aadka u darnaa ee sababi gaadhay in caasimadda Itoobiya gacanta u gasho kooxda TPLF. iyadoo Abiy Ahmed uu soo dhoweeyey boqorka dalkaasi Sheekh Maxamed bin Zayed Al Nahyan, waxaana la sheegay in labada mas'uul ay ka wada hadli doonaan cilaaqaadka iyo iskaashiga labada dal ee Imaaraadka iyo Itoobiya. loomana sheegin si faahfaahsan waxyaabaha ay wada faaqidi doonaan labada mas'uul iyo dhinacyada ay xoogga saari doonaan inta uu ra'iisul wasaaraha Itoobiya booqashada ku joogo dalkaasi Imaaraadka Carabta. labada dal ee Itoobiya iyo Imaaraadka ayaa aad isugu wanaagsanaa sanadihii dambe, iyadoo Imaaraadku ahaa dalalkii sida weyn uga taageeray dalka Itoobiya jabintii iyo iska caabintii lala galay kooxda TPLF oo bilihii dambe oo sanadkanina dhaafay weerar ba'an ku soo qaaday gobollada ku teedsan caasimadda dalkaasi Addis Ababa, iyadoo ku sigtay in ay goyso dhabbaha May oo ay soo marto 90% waxyaabaha Itoobiya la soo degto amaba ay dhoofiso. TV-ga Al Jazeera ayaa baahiyey 2 diyaaradood oo kuwa xamuulka ah, kuwaasi oo dhowr iyo 30 duulimaad ku tegay dalka Itoobiya markii uu socday dagaalkii rogaal celiska ahaa ee ay soo qaaday kooxda TPLF. sawirro ay sheegtay Al Jazeera inay qaadeen dayax gamceed ayaa muujinayay 2 diyaaradood oo Yurub laga leeyahay kuwaasi oo ka degaya Itoobiya, iyadoo kadibna laga rogay shixnad aad u badan oo lagu sheegay inay ahayd hub iyo saanad kale. sidoo kale xogta dagaalkaasi laga helay ayaa sheegaysa in diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee laga leeyahay dalka Imaaraadku ay ka qayb ahaayeen jabintii kooxda TPLF, taas oo lagu fasiray in safarka Abiy yahay mid uu uga mahadnaqayo
dowladda Imaaraadka oo garab siisay wakhtigii ugu adkaa ee soo mara Abiy Ahmed tan iyo markii uu xafiiska la wareegay sannadkii 2018 lama sheegin waxa uu Imaaraadku Itoobiya kaga beddeshay taageerada aadka u badan ee uu la garab istaagay iyadoo dalka Imaaraadka Carabta lagu tiriyo dalalka aan cid u taageerin sabab la'aan balse dhaafsada dana siyaasadeed iyo mid saamayneed maalmaha soo socda ayaa la rajaynayaa in labada dal ay ka hadli doonaan waxyaabaha isla meel dhigeen hogaamiyaasha dalalkaasi xukuumadda Maraykanka ee garwadeenka ka yahay Joe Biden ayaa joojinaysa kaalmo maaliyadeed oo tiradeedu tahay $130 milyan oo dollarka Maraykanka ah kaalmadaas oo Washington ay Masar kaga taageeri jirtay dhanka militariga iyadoo jarista kaalmadan ku sababaysay inay xukuumadda Qaahiro buuxin weyday shuruudihii joojinta waxadgudubka xuquuqda aadanaha oo dalkaasi aad loogu dhaliilo jimcihii shalay ayaa waaxda arrimaha dibadda ee Maraykanku waxay sheegtay inay Masar ku fashilantay buuxinta shuruudihii lagama maarmaanka ahaa ee xuquuqda aadanaha taas aawadeedna la joojinayo lacagtan iyadoo wasaaraddu sheegtay in loo weecinayo dhinac kale oo horumarineed maalmo ka hor xukuumadda Biden ayaa qalinka ku duugtay lacag dhan $2.5 bilyan oo dollarka Maraykanka ah taas oo hub iyo saanad kale oo militari lagaga iibinayo dalka Masar balse xukuumadda Maraykanka ayaa sheegtay inaanay waxba iska gelin heshiiskan lacagta badan ku baxay iyo kaalmada maaliyadeed ee uu ka goosanayo xukuumadda Masar wararka qaar ayaa sheegaya in khilaafkan lacag ka jarista uu ka dhashay dad buux dhaafiyay xabsiyada Masar oo loo haysto arrimo siyaasadeed kuwaas oo Cabdifataax Siisi laga furfuri waayay dalka Masar oo safka hore kaga jira dalalka ugu horumarsan dhanka ciidamada iyo saanadoodaba ayaa muddo dheer taageero ka heli jiray dalka Maraykanka iyadoo sidoo kale Masar saaxiib dhow la ahayd Israa'iil oo la sheego inay tahay taw kala dab qaada Qaahiro iyo Washington balse Maraykanka ayaa muddo badan saluu ka muujinayay qaabka uu ku socdo xukunka dalka Masar oo ah mid mar kaliya gacanta dadka soo galay halka markiina ay askartu ka maroojisay isagoo guud ahaan Maraykanku aad uga walaacsan yahay sida ay dimuqraadiyaddu uga dhimatay dalalka Afrika kuwaasi oo ay xukunkiisa waayahan ku soo badanayaan askarta ku imanaysa xoog sanadkii hore dalka Maraykanka ayaa laalay lacag dhan $700 milyan oo dollar taas oo ku taageeri jiray xukuumadda dalka Suudaan kadib markii ay ceel dheer ku dhacday rajadii laga qabay in xukunka lagu soo celiyo rayidka iyadoo sidoo kale Maraykanku dhawaan sheegay inuu ka fiirsanayo tallaabo uu ka qaadi doono dalka ay dhawaan askartu xukunkiisa inqilaabtay ee Burkina Faso xukuumaddii madaxweyne Trump ayaa lagu eedeeyaa inay dhabarka u sii daysay dalalka ay ka taliyaan kaligii taliyayaashu iyadoo xukuumadda Biden xoogga isugu geynaysa sidii ay cadaadis u saari lahayd dalalka ku liita xorriyadda hadalka iyo guud ahaanba xuquuqda aadanaha taas oo durba la bilaabay howlgelinteedii iyadoo la sheegay in Masarka sokow dalalka kalena taas lagu soo rogi doono tallaabooyinkan ayaa aqalka cadi waxa uu ku sheegay kuwa la doonayo in dib loogu soo celiyo xeerarkii xuquuqda aadanaha ee dunida